السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبتي دقاليقا جعلها جنالكي كحيران عاد بعدين سلامة ولاشين سعدي أود الله يسكسو نقد وناكسن مالين وناكسن وقتي ونبويدينتو وناكسن أنا وحاني آدي ومهد علنا يا أصحاب تعصبين وصبيريس وحاني ليها ويلكام ودي دورنا اللي جوكتن وانكاغا مهد علنا يا haddii ay tahay markii kugu horeysa videoga daawanaysana waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay soo dhawow waa inoo muhiim inaan helno family qurux badan misana nagu soo biiro soo maanta waxaa rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo maxaa la jiray body scrub yo aan soo gatay misana aan zaad uga helay hadda markii labaada soo gadanooya oo ah maxaa la jiray doraada keenay guriga soo horena oo isticmaali jiray haddana waa keensaday soo labadaas body scrub maybe in dad idinku kamid ee isticmaaleen dad idin kamid ahna aysan isticmaalin misana ay ka faa'iideen dad horeeto haddana dadka qaar aysan garanaynin so body scrub-yadeeda waa kuwana wajiyada si fiican ay idin tusabo culeyska kaaga daran mujidaan kan si fiican loo soo jeediyo kan si fiican loo soo jeediyo markiisin say u yihiin kuwaasa screenshot ka qaata dhac kuwaasa saas way yihiin kana saas way yahay soo marka shaqada ay qabanayaan muhiimada ma ahan muhiimada inay idin tuso ama si way yihiin iyo waxay yihiin horta kow haddii aad tahay dadka jirka qolofta ku leh oo yani islaagdad waxaa jiro ama gabdhaha kaleeta daawada marsado bahalkan زايد وانفعه كان زايد وانفعه marka indhaha زايد وانفعayo scrub kan uu ka bedelay scrub yada horeeto hore u naqaanay scrub kan saan uu egyahay mujida soo ku tusay saas way mujida scrub kaas ma qasno waa adaarabta ada qasanaysid hadaarabtid jirkaaga qoyan aad ku scrub kareynaysaa waa kan waxaa laga sameeyaa coffee iyo vitamins iyo waxa ku jiro alaabo kale oo aan meesha lagu soo qeexin laakiin muhiimada waxa way coffee ku jiro jirkan wuxuu siinayaa hal dhahay whiten oo siinayaa hada straight marks qabtid straight marks ku ka baabiina uu ku caawinaya hadii uu jirkaaga qolof zaid u qabo kale taa ani hadda waa isticmaali jiray uu iga dhamaad hadda marka labaad soo qaadan waaye soo marka waxaa way isticmaalaa jirka jeexjeexa oo kale taa oo isticmaali kartaa ani hadda waxaa isticmaalaa maadaama inta dhan suuqa aadayo bus ugu dhacays wasaq ugu dhacays guriga marka imaado biyo isku shubo waa qabtaa soo sidaan sidiisaas mujida oo ciidaas qabtaa soo markaas waxaa sameeyaa bodiga waa mariya slack waa soo qaadanay kasiyar jirkaaga qoyan had saacna mujida jirkaaga qoyan waa ku xoqeysaa sida hadda aa hayo jirkaaga qoyan soo qaadanay saana ku xoqeysaa faante soo marka jirku wuxuu ka caawinayaa inay qolofti iyo wasaqda iyo wixii ka saarnayo dhan ay ka baabaceen sidoo kale ta hooyooyinka umusha cream bahalkan scrub-kan wuxuu fiican yahay hooyooyinka umusha markay umul noqdaan oo kale ta jirkooda wuxuu noqonayaa wasaqa fuuleyso hadda qoorto kale way ka madoobaanayaan skinkooda wuu isbedelayaa inuu madow waxa fuulaa qaab dare soo hooyada markay dhasho jirkeedii skinkeedii tartiib u soo laabana soo marka haddii aad tahay hooyo oo maxaa la jiro misna guri joogta ama aad gabar tahay gabdho waxaa jiro kale ta daawad ay isticmaalaan oo kale ta waxay leedahay qolofka kale ta meelahan oo kale ay ka qaadaa lugaha kale ta ka qaadaa soo meelahaas camal inta qabatay hadda saan ugu xoqdid meeshii qoyan ama xataa aad la tagtid isheeg sinkiga kale ta meesha alaabta lagu dhaqo ama meesha waji dhaqa inta gacmaha dhaqdid bahalkan ku dhaqdid waxaan ku dhahay kaaliska arag lagama sheekeyn karo waaye soo marka kaas uu ka caawina waxa ku soo haray kan kale asigana waa noocan kan waa kii qoynaa waa kii qalalna kan uu qoyan yahay asigana laba nooc oo qaba waa aragtiin uma leena soo yahay kanne waa mid qoyan waa kaasa uu qasan yahay waa scrub caadiga scrub-yadii horeeto ka sii jirna maahan coffee laga sameeyay kan saanu muddo u soo socdaa soo markaas xataa wuxuu leeyahay waxyaalo ku jiro oo shurruc camal ah u maleysid laakiin jirka uu nadiifinaya ku jiro
soo jirka markuu kuu nadiifiyo wuxuu kaa caawinayaa asigana jirkaaga hadduu qoyaneen iyo hadduu oo maxaa la dhihi jiray qallalan yahaba labada waa isticmaali kartaa. waa koofi asigana waa kaasa saarkeysin koofi soap waaye. soo marka kana asigana maxaa laguma soo qeexin waxyaalo badan laakiin kaasa badanaa lagu soo qoray. waxaa lagu soo qoray inuu whitening leeyahay, inuu straight marks ka saarayo, in jirkaaga haddii wax saq badan uu leeyahay kaleeta aad ku scrub gareysid uu kaa baxaayo. adduunkana meelaha oo loogu talagala masaajidka waxyaalahaas jirka la iskugu dhaqaa. soo Nairobi xataa meelan ku arkay oo jirka la iskugu dhaqaayo. soo marka haddii aad tahay hooyo oo jirkaaga oo maxaa la dhihi jiray uu yahay jir oo maxaa la dhihi jiray wasaq zaa'id leh oo kaleeta hadduu yahay uu ku anfacaa uuna maxaa la dhihi jiray gacmahayga waa halaabeen ma jirtaan meesha dhan sokor camal ay noqotay. soo gacmaha iska soo dhaqaa, soo replace wax yar. soo marka haddii aad tahay hooyo oo umul ama jirkaaga kaleeta oo wasaq zaa'id leeyahay ama aad tahay qof daawo marsado oo isticmaal hadda dadka new light ka camal isticmaala jirka way fiiqdaa zaa'id u fiiqdaa. soo marka kaasoo kaleeta waa u isticmaali kartaa, jirka uu ku nadiifinaya, wasaqda leedahay dhan uu ka qaadaya. soo waxyaalo badan aan laga sheekeyn karin uu ku qabanaya, jirkaaga softy uu ku noqonaya. ila soo tijaabi waxa aan soo arkay ma aha wax aan maanta ku faaninayo, waa mid aan soo arkay siba ani kana zaid u jeclaystay black-kan black-kan oo midka qoynin oo yacni aan kan oo caadiga ah oo aan borderka camal kaas zaid u jeclaado. waxyaalo waxa ku jiro oo quruurac oo ay ugu talagaleen hatta scrub-yada qaarkood waa taqaaniin marka isticmaalaysan scrub-yada strawberry waxyaalahaas oo jirka loogu talagalay wajiga waxaasna marsan marka isticmaalaysan waa aragtiin waxay sameeyaan waxyaalaha ku jiro oo yani taabashadooda aad dareemaysid ku jiro kuwaan saan camal waxyaalaha taabashadooda dareemaysid jirka loogu talagalay in lagu xoqo laakiin zaid raaf ahayn ku jiro. soo sidaa daraadeed waxay sameeyaan waxay ka caawinayaan in maxaa dhihi jiray waxyaalo badan oo jirkaaga ku jiray dead skin oo kaleeta zaid u kaaga saaraa. markuu dead skin kaaga kaleeta qofka mugtahay marka uu zaid jirkiisa u dilmo ama uu xanuunsado ama waxyaalo kaleeto badan oo kale ay ku dhacaan dead skin uu yeeshaa. dead skin waxaan ka wadaa jirkaaga dulduleelkaas way qarsoomayaan, dulduleelka jirkaaga uu leeyahay way qarsoomayaan. soo marka waxay ka caawinayaan jirkaaga dulduleelka uu lahaa iyo xaadka soo bixiyay bixii oo dhan inay ku soo saarto oo dead skin-kii saarnaa jirkaaga dhan way ka baabi'inaysaa oo ebero ka dhigaya qurux jirkaaga taabashadiisa xataa waxaa leedahay waxaa noqonaya isla body baby camal oo caadi noqonaya. soo marka insha Allah haddii aad interest gareynaysid ama aad doonaysid inaad scrub-yada noocyadaas oo kaleeta aad jeclaysatid suuq waa ka helaysaa. haddii aad ila soo xiriirtid insha Allah dukaanka ku connect gareyn doonaa waana ka heli doontaa. saaksa uro video inaad duubo iyo codkayga soo xiran yahay isma lahan. soo marka waxaan rajeynaa insha Allah inaad imaqleysaan hadduu maqal jirin hello halisoo dhasacdiisa maxaa qaldan. soo marka waxaan rajeynaa insha Allah in idinka ka faa'iideysan doontiin. gabar walbana quruxdeeda waa jeclahay haddii aad tahay hooyo sideedoo kaleeto, haddii aad tahay gabadh waa gaari doonta hooyo insha Allah, haddii aad tahay maxaa la dhihi jiray maamo ama hooyadii oo kaleeta aad doonaysid jirkaaga inaad qurux badnaado oo nacniciin aan noqoto oo maasha Allah iska ahaatid haabalka ku dadaal. waxyaalaha haabalka zaid ku anfacayaan wajigaaga kiimikada gadaa, wajigaaga waxaa sameysaa haddii aad interest gareynaysid. aniga kreemo waa soo gelinaa laakiin dib ku jiro codsigiina waa igama ahna inay kreemo yani ay iga tahay laakiin majority-ga dadka markii la fiiriyo kreema isticmaashin actually soo marka wax soo geliyo waa waxa soo gelinaa waa wax idinka codsigiina maanta ma jirto gabar oo yani hooyadii ku dhashay magaalada ku joogto oo show aniga kula hadlaamo markaa waa isku xadaa beenna Moms Beauty marsada waa hadee once a while waa isku xadaa markaas arko inuu wajigayga sii dhamaayo. naag maanta aad dhihi karo ma jirto boodigeeda waxaa waaye wax ma mariso oo way ka sooman tahay aad dhihi karo haba yaraatee ma jirto. soo sidaa daraadeed waxaan idin leeyahay qof walba aad tahay gabar oo hooyo oo maamo everybody jirkiisa inuu qurux badnaado inuu ku dadaalaa. quruxda lagu sheegayo waxaa waaye dadaal waaye lama kala qurux badnaa qabayska badsaa hore loo dhaxay. soo marka insha Allah waa rajeynaa idinka ka faa'iidi doontiin. waan idinkaga mahadcelinaa daawashada videogan
waxaan idin leeyahay haddii aad nagu cusubtiin soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaadba haddaad hore noola joogtan waan kaaga mahad celinaynaa. haddii aad nagu cusubtaana videoga noo leegaray noona sheegaray si asxaabtaadii familigaaga uga faa'iidaystaan. waad ku mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.